عدينا أرتا وح سياسة إن وحل إكاتة إن أنا محوها كلوك لحين إن أنا كلوك لحين وح عدينا يا قار كمية الدولة حتى رك صاحبه الحفيز كيميت يا وح كتر صدق فهمتي وكان قارنمو تصطي إن أرتا مرتان وحيا واحد كلوك لحين marka midaasna waa qodob in arrintan wax siyaasad la xiriirin aad iyo aad u mahadsantihiin walaalayaal markale salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaam dabadeed waxaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa kulankan oo muxuu ahaa meesha halkan Twitter space la yiraahdo u malaynaya hadii iska khaldanayn intaas kadib waxyaabo badan iyo runtii intii hawshan lagu guda jiray soo ifbaxay oo ay tahay bogdan in laga qoro runtii astaahisho in bog laga qoro maanta yaa ugu dambeysay maanta ma ahan saacado ka hor gabar ila soo xiriirtay oo Scandinavian ka joogta yaa waxay ii sheegtay dahab ay leedahay inay dhaqaale inay haysatay laakiin si kale wax ka noqday maanta waxyaabo kale ugu jireen lacag kaash aan ahayn laakiin dahabkeedii ay geysay meel وصل قضي بركة وحنكو إرداف كان إسكاهي صعدي مرتي واحد ظروفه إلا هيك كذا شيء مجرى وصدقة صدقة نقف كهدو أو دواي ما يوحي تري علي أو النفس يقول نغنيسا هذا أنا حتى كخيف قادم واي مركا قارو عرتين حوله ميجا سودي أو سويلة كانوا قضية وعرتين الماء يري روح صقير وعرتين كوبا هي عقاركا قباير ويانا وعرتين وقولي إلا ما تحس حريري يسوى العكتي وضع وقانون الله أنا العكتي يا رنتي ذا عبد الرشيد يا محمد يا كوكرانا يا مارتي يعني سكر حرير دورا رنتي حتى ماشي وحمر يعني أنا قياستي ذا وحوي وكحو كنت هاي مراها يو قياس تمر كهر أهي سنة عادي وكحو هاي عادي بس خيسا رجلي iyo jilidii markii hawshan lagu dhaqaaqay sida ficilka loo gudo kaliya la qabay iyo hadda tan si ficil meesha oo marayso runtii wax isku dhow maaha arintan waxyaabo badan ayaan anagu hadda ka baran karnaa oo maaragtay waxyaabo kale hadhow lagu implement garay doona hadii la yiraahdo tan kale waxa weeye oo aan rabo runtii inaan dul istaago waxaan arkay dad badan oo raba inay arrintan siyaasadayaan arrintan wax siyaasad la xiriira ama ay kulug leedahay ama loo ekaysiin karo qofkii dabiir loo ekaysiin karo maaha waa arrin abaalmarin ah abaalmarintana qof kasta oo muxuu ahaa madaxweynuhu waa shaqaale dalka iyo ummadda qaranka shaqaale ahaa qof kasta oo shaqaalaha xataa ka bariga qofka ka shaqeeya yaa markii maartay shaqada u dhamaato xaflad oo very well party inta loo qabto very well party kaas abaalmarin lagu siiya oo wax oo standard oo adduunka dhanka jira weeye haddii qofku wax yani cajiib oo extraordinary uu sameeyana dee waa wuxuu mudanayaa mid hadda madaxweyne farmaajo oo mudanayo kale marka arrintan waxaan cadeynaynaa annaga ka muxuu ahaa garbaha madaxweyne ahaan ka saaxiibadiis ahaan ka xisbiga odayaasha xisbiga ahaan waxaan cadeynaynaa arrintan wax siyaasad ah inna waxaa la ekaatee inaanay muxuu ahaa kulug lahayn inaanay kulug lahayn waxaa cadeynaya qaar kamida dowladda hadda ragga saaxiibada xafiiska yimid yaa wax ku darsaday runtii oo qaangaarnimadoodu tustay in arrintan maartaan waxyaabahaas kulug lahayn marka midaasna waa qodob in arrintan wax siyaasad la xiriirin haddii insha allah sida aan rajeynayno madaxweyne xasan sheekh iyo wadada fiican ee wanaagsan qodoxda badan hadda uu ku bilaabay ay sii socotana isagana saas oo kalaan waan oga shaqay doonaa in lagu abaalmariyo dad aad u badan oo dadka igu xiran ah inay fariimo ii soo direen oo waliba toos ah oo taleefankayga WhatsApp-ka ah iyo dad soo wacay oo intuba ka hadlaya madaxweynaha in guri loo dhiso sheekada haddaan sii baarbaaray waxaan isaga qaatay inay ka dhalatay sheeko dacaayad ah oo meelo kale ka timi oo dad ku dacaayadeynayay madaxweynaha inuu guri kira ah oo aad qaali u ah degay say sheegayeen guri kira ah oo aad qaali u ah
marka dadkii baa ka carooday shacabka ah waxay yidhaahdeen madaxweynuhu muxuu guri kiraa horta u degay ama qaali ha aado ama raqiis ha aade muxuu guri uu leeyahay u degi waayey waxaa soo baxday oo la ogaaday inuusan guri lahayn oo ku lahayn waddanka guri sheekada marka halkaas spontaneously sheeko u dhalatay ayaan anigu u fahmay aragti ahaan ma garanayo qofka shakhsiyan personally keenay intaa kadib mawduuca ama barnaamijka anigaa gacanta ku dhigay madaxweynaha la hadlay waxaan ku yidhi madaxweyne barnaamijkaas baa aad la iigu wareeriyey oo dadki waxay leeyihiin madaxweynaha guri ha loo dhiso saan marar badan sheegay madaxweynuhu arrintaas aad buu u diiday uga hor yimi ma yeelayu yiri arrintaas ma dhacayso waa isla wadnay xataa possibilitygeeda iyo suurtagalnimadeedaan ka wada hadalnay anigu dee hadda qurbahana waa joogaa shacabkana waa ka mid baan ahay waxaan u sheegay inay possible tahay maxaa yeele dadku hadday isu tagaan dee buur waa dumin karaan kulligeed ama waa dhisi karaan buur iska daa guri yar iyo wax la mid dadku hadday midoobaan oo isu tagaan xuduudana la mideeyo wax ka weyn baan samaynaa annagoo qurbaha masaajidaan ka dhisnay boqolaal masjid baa ka dhisan north america iyo yurub haddaysanba kumanaan kun gaarayn ama aysan ka badnayn midka ugu yarna million US dollar iyo ka badan baa lagu dhisaa arrinta iyada ah markaan dhinaca ka eegay waxaan madaxweynaha ku qanciyay inay tahay suurtagal inaan dhisno guri haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed inaan guri dhisno inay suurtagal tahay kadib inay appropriate tahay baan ka wada hadalnay oo muddo ka doodaynay ma tahay wax maceebba ma sharafba maxay tahay waxaa noo soo baxday oo aan isku waafaqnay in aysan ahayn haba yaraatee wax negative aysan lahayn qof aad jeceshahayna aad ku sharfi kartid inaad waxaaga wax ka siisid qofkaasuna uusan ahayn qof isagu ku tuugsaday wax ku weydiistay adigu aad u garatay oo ku sharaftay inaysan ceeb ahayn oo dhibaato ahayn oo mushkilo ahayn arrintaas markaan isku waafaqnay kadib madaxweynuhu waxay qaadatay ugu yaraan usbuuc iyo ka badan inuu iga yeelo markaa kadib uu ku qancay qadiyadaas marka saasay ku dhalatay markii koowaad madaxweynuhu markii uu aqbalay baan shaaciyey oo waxaan soo geliyey facebooka iyo youtube-ka aan sheegay inaan madaxweynihii ku qanciyey dadku inay la soo xiriireen aniguna aan madaxweynaha ku qanciyey madaxweynuhuna uu aqbalay intaa markii aan sheegay waad ogtihiin oo waxay igu qaadatay haddana usbuuc inuu madaxweynuhu arrintii finalize gareeyo oo intaa uu ka fakero oo digestion ku sameeyo oo markaa kadib haddana accountigii la raadiyo bal qaabkii loo furi lahaa waad ogtihiin madaxweynaha lacag laguma diri karo magaciisa politically exposed person waxay noqonaysaa every transaction in si private ah loo sii daayo oo xawilaaduhu way ku wareerayaan iyo bangiyaduba arrintaas marka waxaanu isla garanay dadka shaqaalaha ka ah madaxtooyada oo madaxda ah oo ay ka mid yihiin agaasimaha guud warfaafinta iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada in magacyadooda lagu qoro baan markii dambe isku waafaqnay oo madaxweynuhu iisoo gudbiyey raggaa lagu qoro akoonadii saasaa lagu furay marka barnaamijku waa barnaamij sidaa ku bilowday insha allah wixii ku tacalluqoo dheeraadana agaasimaha iyo waxaa inoo sheegi doonaa guddoomiyaha haddii uu isaguna soo galay anigu uma jeedo guddoomiye cali yare haddii uu soo galay hadduu soo galay ha soo dalbado sacdiyo cilmi hadday soo gashay iyaduna ha soo dalbato sacdiyo way soo gashay u diray cabdirashiidna wuu ka dhacay wuu soo laabanaa koleyba waan sugeynaa calina weli ma imaan barnaamijkeenu waa intaas maanta aynu ka hadlayno waxaan cadaynaynaa arrintan wax siyaasad ah inna waxaa la ekaatee inaanay muxuu ahaa kulug lahayn inaanay kulug lahaynna waxaa caddaynaya qaar kamida dowladda hadda ragga saaxiibadan xafiiska yimid yaa wax ku darsaday runtii oo qaangaarnimadoodu tustay in arrintan maarata aanay waxyaabahaas kulug lahayn marka midaasna waa qodob in arrintan wax siyaasada la xiriirin aad iyo aad u mahadsantihiin walaalayaal mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan dabadeed waxaan aad